la taliyihii ajnabiga ahaa ee madaxweyne xasan sheekh iyo sheekadii qosolka lahayd ee uu ka qoray Soomaalida. Dalalka galbeedka, dadku waxay u badan yihiin inaysan ugu yeerin saaxiibadood iyo asxaabtooda naanaysyo ka soo jeeda muuqaalada foosha xun ee jirkooda. Laakiin Soomaaliya, dadku waxay jecel yihiin naanaysyada noocaas ah. Markii aan helay kaarka aqoonsiga xafiiska madaxweynaha ee Muqdisho, waxaan ogaaday in ugu dambeyn la ii aqbalay. Waxay igu qaadatay sanad. Waxaa lagu qoray kaarkayga la taliyaha warbaahinta caalamiga ah, xafiiska madaxweynaha. Waxaa magacayga ku xiga 2 kelmadood oo Soomaali ah oo u qoran timo cadde, macno ahaana ah qof ero leh. Ugu dambeyntii, waxaan la isiisay naanays. Soomaalidu waa dad hal abuur leh oo naanays yaqaano ah, laakiin 12 bilood ee la soo dhaafay wixii ugu badnaa ee aan maqlayay wuxuu ahaa gaal. Hadalkaas kala soocid yar ayaa ku jirta. Waxaa si joogta loogu yaraa kelmadda gaal qof kasta oo aan Muslin ahayn. Gaalow halkan kaalay. Aaway gaalkii iyo wixii la midda ayaa yidhaa. Timo cadde ma aha naanaysta ugu fiican adduunka, laakiin iyada ayaan qaadanayaa marka meesha timaado naanaysta kale ee gaal. Markii ugu horreysay ee aan ku baraaruga naanays jacaylka Soomaalida waxay ahayd markii haweenaydii nadaafadda guriga joogtay ay i weydiisay aaway Faroole oo ahaa ninkii dhalinyarada ahaa ee qadada noo keeni jiray. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cabdifataax. Ayaan ku idhi anigoo u malaynaya inay haftay. Si xoog leh ayay madaxa u ruuxday oo dhowr farood kor u qaaday. Maya Faroole ayay si madax adayg ah u tiri. Cabdifataax waxa uu 2 farood ku waayay dhowr sano ka hor markii ay hoobiyeyaal ay ku weerareen xarunta madaxtooyada kooxda Al-Shabaab oo ka tirsan ururka Al-Qaacida. Sidaas daraadeed ayuu ku qaatay naanaysta Faroole. Ninkii iiga horeeyay xafiiska madaxweynaha oo isna Ingiriis u dhashay ayaa lahaa naanays, isaga oo loo bixiyey Faruur. Soomaalidu si ay kuu fahansiiyaan waxaa loola jeedo Faruur, waxay fartooda saarayaan bushinta kore. Dhakhtarka ilkaha gudaha Soomaaliya waxaa laga yaabaa inuusan gaarsiisnayn halkii laga rabay. Sidaas daraadeed ayaa arkaysaa Soomaali badan oo la yidhaahdo ganay maadaama aysan helin dhakhtar ilkood. Xasuunow, haddii timahu kaa daataan waxaa suuragal ah in lagugu yeero bidaar. Soomaalidu waxa ay noqon kartaa dad ajaanib nacayb badan. Shisheeyahana waxay ugu sheegaan si furcadi leh. Dadka Shiineyska ah waxaa loo yaqaan indha yar, Carabtana dhagacaas. Ilaa intii aan joogay Muqdisho waxaan la kulmay dadka loogu yeerayo jilbo weyne, shigshigaye, yare iyo yariisow. Waxaa kale oo xiiso lahayd casho aan la qaatay burcad badeedkii caanka ahaa ee afweyne, kaas oo afkiisa weyn dartiis loogu bixiyey naanaysta. Mid ka mid ah saaxiibadayda ugu fiican oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa isna loogu yeeri jiray indho cadde. Muddo kadib qaar ka mid ah asxaabtayda waxay aadeen Uganda. Waxayna soo laabteen iyaga oo wada sheeko qosol leh oo qabsatay oo ku saabsan in mid ka mid ah asxaabta uu isku dayay inuu shukaansado gabar Soomaaliyeed. Waa nin dhalinyaro ah oo fidsan balse dhabanka nabar weyn kaga yaal. Waxa uu bilaabay in uu inantii la sheekaysto. Waxa ay si lama filaan ah isha ugu dhufatay nabarkii weynaa. Halkaa marka ay marayso isla markiiba dabeecadeeda ayay ajiga u badashay oo intay si quudhsasho leh u eegtay ku tiri canjeex oo ku jeesjeestay. Halkaa waxaa ku dhammaaday kulan kalgacayl lahaa. In ka badan 20 sano oo dagaallo ay ka socdeen Soomaaliya, ma yara raga qaba dhaawacyo ka soo gaaray colaadaha. Markaa waxaad la kulmi doontaa rag lagu naanayso laangare ama curyaan, laakiin qofka lugta laga gooyey waxaa la yidhaahdaa lugay. Dadka ciladaha ka qaba indha iyaga waxaa loo yaqaan weershe. Kuwase aan aragga lahayni waa indhoole. Haddii maqalkaagu kaa goo waxaad tahay dhaboole. Waxaa kale oo iyadana ku jirta in xitaa dumarka jirkooda lagu tusmeeyo sida ay u eg yihiin, taas oo u muuqata ka badbadin xadgudub dumarka ah. Luul ama deeman waa naanays aan ah oo dumarka loo yaqaan, laakiin waxa kale oo soo baxday macaan iyo indha deeralay. Naanaysta ugu jeclahay waxaa loo bixiyey naanaystaas nin Soomaali Maraykan ah oo aan dhowaan ismaqalnay oo leh fanax weyn oo ilkihiisa u dhaxaysa. Naanaysta keliya ee u suuban ayaa ah afdunaa. Waxa aan maalin dhaweyd kala sheekaysanayay saaxiibkay Soomaaliyeed ee Sheekh Maxamed naanaysyada Soomaalida. Balse haddii aad joogto gudaha Ingiriiska, naanaysyada qaar waxay kuu keeni karaan in qof dhibsado ama diido, dabadeedna booliska kugu yeero isagoo u arki kara qoorsi.